xildhibaan maxamed cali cumar caananuug oo aan ku booqanay hoyga lagu baxnaninayay ku yaala magaalada Khartoum ayaa aad u wanaagsan tahay xaaladiisa caafimaad kadib markii in muddo uu saarnaa sariir xildhibaanka oo ku soo dhaawacmay qarax gaarigiisa lala beegsaday xilli uu marayo wado ku taala meel u dhow hoygiisa magaalada Muqdisho ayaa ku waayay mid kamid ah labadiisa lugood halka mid kalena ay ciribta ka gooday xildhibaanka uu waramay TV-ga qaranka xafiiskiisa magaalada Khartoum ayaa ugu horeynba ka warbixiyay xaaladiisa caafimaad xilli loo soo galiyay caagadaha sida lugta oo kale loo sameeyay aniga caafimaadkayga ayaan rabaa inaan ka warbixiyo oon gaarsiiyo inta maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaano sidaan ahay maanta iyo waxaan soo maray caafimaadkayga waa fiican yahay waad ii jeedaan inaan lugahayga ku taaganahay oo waxba isaga hadlaysan alxamdulillah oo ilaahay ii gargaaray nimankii dhagarqabayaasha ahaa ee cadawga Soomaaliyeed ee dhibaatada ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ku hayay markay gaariga miina iigu xireen bishii 10 taariikh 14 dhagarqabayaasha waxay rabeen waxay ahayd inay nafta idaafiyaan laakiin qof kasta xilligeeda ay dhimanaysaa maanta waa noolahay waa fiican alxamdulillah qaranka ayaan inaan u shaqeeyana diyaar u ahay iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dawladda Suudaan iyo shacabka Suudaan sida ay soo dhaweeyeen oo ila tacaamuleen niyad wanaaga iyo walaalnimada waxaan hilmaami karaa ma aha ummadda Soomaaliyeedna waxay u tahay sharaf anna ma hilmaami doona waxaan kala rabaa inaan u mahadceliyo ardayda Suudaan wax ka barata halkan joogta oo bishii halkan la keenay iyo maanta inta ka dhaxaysa soo dhaweeyay ila joogay qaar hata jaamacadooda iga soo tagay oo ma taqaana hada gurigeyga wax ka jooga oo ayaan horta aadan ugu mahadcelinayaa ardaydaas waa arday Soomaaliyeed oo Soomaalinimo ay ku jirta oo ma taqaana 18 sano wixii la soo maray qabiil iyo baqti ka fiyo oo jaamiciyiin oo wax bartay hadda mar raba qaar ina magacyada sheegay dhamaantood oo u mahadcelinaya sida ay soo dhaweeyeen waxaan kala rabaa inaan u mahadceliyo warkayga wuxuu iskaga banaanayaa mahadcelin maadaama nin 5 bilood meel jiifay oo dhaawacaan ahaa oo maanta lagu ku socda wuxuu iskaga banaan doonaa mahadcelin waxaan kala u mahadcelinayaa baarlamaanka Soomaaliya oo markuu dhibka ugu dhacay si aan kala har lahayn igu soo gurmaday aad ay u mahadsan yihiin iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo ka shaqeeyay meesha tan Suudaan sidaan ku imid ayuu wuxuu ugu shaqeeyay aad u mahadsan yahay xildhibaanka oo inta badan la socda wararka Soomaalida ayaa ugu tacsiyay qaraxii maalintii daraad ahayd ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada oo ay ku dhinteen askar iyo shacab kale oo halkaasi ku sugnaa rabaa inaan u tacsiyay qaraxii shalay ka dhacay sila Soomaaliya oo ku dhinteen dad shacab masaakiina oo meel maqaaxiya ka qaxweynay eheladii dadkaas ay ka dhinteen samir iimaan Allah ka siiyo intii dhimatayna sanadii fardoos Ilaahay ka waraab xildhibaan maxamed cali cumar caananuug ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay taageeraan dawladda ayna ka qayb qaataan hawlaha dib u dhiska wadanka ka socda iyo amaanka intaba waxaad u maraysaa hadda beesha caalamka 18 sano oo Soomaaliya ay dhibaato ku jirtay hadda caalamka inuu u soo jeestay Soomaalida in wax la qabto oo dawladnimo la gaarsiiyo oo nimanka argagixisada oo soo duulay oo ummadda Soomaaliyeed diigooda ku ganacsanaya in laga saaro dalka dadaal badan oo noocaas ayaa muuqda oo hadda waad arkaysaa Baay Bakool iyo Hiiraan meelo badan laga xiriyay shabaabka xagga waa u jeedaa gobolada Jubbooyinka meelo badan ilaa gedo in laga soo xiriyay Hiiraan iyo waa arkaysaa ma taqaana ii sheeg shabaabka in laga saaray oo aqabad ku ah ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa shacabka 18 sano dhibaato lagu soo jiray oo dawlad laan la ahaa inay fahmaan inay la shaqeeyaan dawladda xildhibaanka caananuug oo dhowr bilood ka hor dhaawacmay qarax ayaa hadda waxa ay u muuqataa inuusan u joojinin hawlaha uu bulshada Soomaaliyeed u hayay
in qaraxyo noocan oo kale lala beegsado xaaladda xildhibaanka oo aad aragtaan sida daawadayaal sida uu yahay iyo sida uu caafimaad qabo ayaa waxa laga yaabaa inuu dhowaan sida uu sheegayba bisha afraad uu wadankii dib ugu noqdo isla mar ahaantaana uu bilaabo hawshii qaran oo uu hayay ummadda Soomaaliyeed fiidow maxamuud fiidow TV-ga qaranka SMTV al Khartoum Sudan